Soomaaliya ee maanta aan haysano inaysan jeclayn. waxaan ka wadaa Somaliland. saad ogtihiinba intiina taariikhda baratay, intiina jaamacadaha aaday ama mutacalimiinta ahi, halganka Soomaaliya qaybta ugu dhibka badneed waxa ay soo martay Somaliland. waxay ahayd meeshii ugu horreeyay Afrikaan ah ee lagu duqeeyay diyaarado ama lagu weeraray waxa la yiraahdo aerial bombardment. reer waqooyi Ingiriisku markii uu soo weeraray ilaa uu ku weeraray diyaarado si kasta oo uu sameeyay uu soo galiyay wadankooda. waxaa ka jiray halkaa ka jiri jiray boqortooyadii Cifaad iyo boqortooyadii Cadaal labaduba. waa geesiyaal Soomaaliyeed, waa dad Soomaali ah oo xaqiiqa. calanka maanta aan haysanana aad ay u neceb yihiin. aan ka wada sheekaysana marka. waxaa xaqiiqa reer Somaliland calankan maanta aan haysano innaba inaysan aqbalayn. waa xaqiiqtaas. waxaa kaloo xaqiiqa walaalayaal inaanan Somaliland marnaba ku muquunin karin xoog, xitaa haddii ay suurtagal noo tahay ama aan samayn karnaba sidaan aaminsanahay amaba samayn karnee inaysan caqli ahayn inaan xoog ku muquunin. waa isla ognahay taas. Somaliland dagaal kuma soo jeedi karno, inaan ugu guulaysanana lama hubo xataa haddaan isku dayno. waxaa kaloo xaqiiqa oo maanta la hubaa inaanan ka maarmin Somaliland. Soomaaliya inay kala go'do inay nagu tahay xanuun aad u fara badan. iyagana sidaasoo kale inaysan naga maarmin innaga. waxaa xaqiiqa markaa calankan maanta aan haysano ee Soomaaliya inaysan rabin, aadna u necab yihiin. si walba oo ay noogu sheegi karaanna ay noogu sheegeen, kor iyo hoos labadaba. haddii ay sidaas tahay markaa, haddii ay xaqiiq tahay in reer Somaliland aanan ka maarmin iyaguna naga maarmin, haddii ay xaqiiq tahay in aanan reer Somaliland xoog ugu soo dari karin Soomaaliya oo aanan qasbi karin, haddii sidoo kale ay xaqiiq tahay ayaguna inaysan xoog ku go'i karin inaa leekaatee, xaqiiqna ay tahay calanka Soomaaliya ee maanta aan haysano inay necab yihiin, weliba si zaa'ida u necab yihiin. su-aasha inoo hortaallaa haddaan Soomaali nahay waxay noqonaysaa sida tan marka. ma waxaan dooranaa calanka annagu aanaan samayn, gaaladu noo samaysay, diin kaleeto lagu caabudo miyaan dooranaa, mise waxaan raadinaa walaalaheen reer waqooyi calankaana dhinac baan iska dhignaa? waxaan rabaa shaqsiga Soomaaliga ee waddaniga ahi su-aashaas inuu isweydiiyo kana jawaab. aan mar kale ku celiyo. ma waxaan dooranaa oo aan qaadanaa calanka annagu aanaan samaysane gaaluu noo sameeyey, calanka lagu caabudo diino kaleeto, calanka innaga aanna matelin inaa la ekaatay oo taariikhdeedii bannaanka aan soo dhignay, mise calankan oo markaan kaas qaadano waxaan iska dhaafnaa ama aan ka samarnaa rajada aan ka leenahay reer waqooyi in ay walaalaheen nagu soo laabtaan oo lana mid noqdaan? mise walaalayaal calankan iska tuurnaa, walaalaheen ayaan raadsanaa. kama wado marka aan sidaas leeyahay shuruudda kaliya ee u taala waqooyi Somaliland inay Soomaaliya mar kale aan isla midowno inay taas tahay. arrimo kaleeto oo fara badan ayaa jira, laakiin calanku waa midda ugu xooga badan. siday rabaanba ha u aaminsanaadeen, qaabkay rabaanba ha ka aaminsanaadeen, fikirkay rabaanba ha ka qabeen, laakiin waxaa inoo cad inaysan calankaa rabin. walaalayaal marka hadday sidaas tahay, ma waxaan maradaas yartaa oo gaal uu inoo sameeyey oo maanta taariikhdeedii bannaanka aan soo dhignay oo calaamado diino kale ay ku jiraan oo arrinta ama masalada diiniga marka loo tago laysku khilaafsan yahay, laakiin labada kaleeto ee ay inaysan matelin gaalna uu sameeyey ay saxsan tahay, ma waxaan ka dooranaa maradaas Somaliland walaalaheena reer Soomaaliya ama walaalaheena reer Somaliland, mise waxaan dooranaa Somaliland? haddii aad tahay qof Soomaaliya oo waddani ah, jawaabtu waa iska cadda. waxaan dooranaynaa Somaliland walaalaheena, kama maarano
nagama maarmaan waa walaalaheen ayaga hadday keligood noqdaan waa ducfi iyo tabardarro annagana sidaasoo kale haddaan ayaga la'aantood waxay nagu tahay tabardarray nagu tahay waxaa la rabaa qofka bini aadamka ee islaamka khaasatan dadkeena soomaalida islaamka caqligeenu inuu shaqeeyo inaa wajadnaa aabaana waxba kuma xalismaan xalna ma ah waxaa xala walaalayaal inaan ku dhiiranno xaqiiqdu waxa ay tahay waxaa xala walaalayaal in aan ku dhiiranno horumarinta waddankeena oo caqligeenna aan furno waxaa xala walaalayaal inaan leenahay awooddii aan ku fakari lahayn oo aanan ku dheganaa lahayn wixii shalay laakiin maskaxdeenna intaan ku furno aan u yeelan lahayn in aan ka fakarno waxyaabo cusub nolol cusub iyo qabab cusub waayo adduunka aan maanta joognaa ayaa nooga baahan mid ah waayo diinteena islaamka ayaana faraysa sidaas shakhsiyaadka marka ku dhegan calankan ee markasta ku andacoonaya calankani waa mideeye walaal mideeye maha calankani waa kala geeye dadkii Soomaaliyeed qaar badan oo ka mid ah oo reer Somaliland ayaan rabin calankan oo ka soo jeestay in haleekaatay qaabka tartiib ugu yar adigu madaxdooda saas ugu yar shacabka sidaas ugu yar waxa tartiib ugu yar bal waxa xaqiiqa in aysan rabin calanka oo ay ka soo jeesteen wax xaqiiq cad oo in horta la maantay haddii marka calankaas aad ku dhagtood ku dhadhafto waxa aad ujeedadaadu ay tahay in aad wiiqdo midnimada Soomaaliya in aad kala geyso dadka Soomaaliya in aad si riixdo reer waqooyi inaad sanka ka geliso wax ay necab yihiin oo ay diidayaan inaad walaalaha ku qasabtid inayna siinacaan arrintaasina diintana waa ku qalad wadanimadana waa ku qalad dadka meelaha kale ka fiirinaya ee caatifadu ay ku jirto ama jahligu uu ka buuxo fahamsaneen calankan wuxuu yahay ama ku doodaya waana la ku soo koriyay waa ku soo dhaqanay iyo waxyaabo la mid ah dadka leh xorriyadda iyo calanku waa isku mid hurdada ka kacwalaan xorriyadaada marna ka tagi mayso calankana 200 oo maraad bedeli kartaa adoon xornimadaadii luminin ayaad calanka bedeli kartaa Soomaaliland calankii waa iska bedeleen waana xor cid gumaysta ma jirto haddaad ku doodaysid waddan ma aha oo lama aqoonsan de war annagaba dhibku waan haystaa labadeenaba way haystaa dhibku wax maanta hadda ay naga liitaan ma jirto in haleekaatay marka waa isu baahannahay siday noogu baahan yihiin sidaan ugu baahannahay ay noogu baahan yihiin siday noogu baahan yihiin ayaan ugu baahanaa anaguna haddii aad tahay marka shakhsi Soomaaliya oo wadani ah oo waddankiisa jecel waxaa qasaba haddaad Somaliland joogtana inaad ka fakirtid Soomaalida kale haddaad Somaliland joogtana inaad ka fakirtid Somaliland inaad ka fakirtid sidaad u soo dhaweey lahayd inaad ka fakirtid sida hadalkaagu u macaanaan lahaa inaad mar kasta ku dadaashid walaalaha inaadan sii riixin oo aadan ku riixin waxa ay necab yihiin shakhsiga bini aadamka aqliga saliimka wuxuu noo sheegayaa haddii aad rabto walaalka lama xumeey haddii aad rabto walaalka inuu kula joogo waa la wanaajiyaa reer waqooyi waa dad Soomaaliya in fact dad badan oo Soomaalida dhinacaana ay ka Soomaalisan yihiin markaan Soomaalinimada leeyahay ka wadanisan yihiin ka diin jecel yihiin lama rabo marka wax ay naceen oo ka hor yimid wax ay dhibsanayaan oo koosanayaan in sanka laga geliyo oo la yiraahdo waa kana qaado waxaan rabaa doodaydii mar kale inaan soo gunaanado ku saabsaneed afarta qodob ama qodobkii afaraad ee reetal ku nool haddaan nahay aan aaminsanahay calanka in lagu bedelo kow waxay ahayd calankaas anagu inaan samayn عوالة مسمين قف سومالي مسمين قالها إنه سمين تلياني كبا سمين تاريخ دي سي بنان كي تالا وعدا لابو إنه سنة ترجمين داد كلا شنطة حدو شنطة سومالي ويالان شنطة سوماليا أما شنطة الصوماليات با أنسحو شنطة حدو وما يالان كمان ترجمان شنطة جيس وحي كترجمتا وحكاليتو وأنا هين شنطة سومالي عالم كستو عالم كيالي كتالا كإثيوبيا كتالا كتركيا كتالا كباكستان بيكوتالا كالجيريا بيكوتالا كمريكان بيكوتالا ودم بدن بيكوتالا على مدود therefore شنطة جيس pentagram كو وما تاجنا شنطة صومالي وهذا قضب كلامه قضب كسدحات
calanka Soomaaliya waa calan ay haystaan wadamo kaleeto isla markaasna leh astaamo diimo kaleeto leh oo lagu caabudo diimo kaleeto arrintaas horaan u sarxan caawa waxaan ku daraynaa qodobka afraad oo ah calanka Soomaaliya ee maanta aan haysano inuusan ahayn mideeye ee uu yahay kala geey waxaan rabaa arrintaas inaad si fiican fahantaan dadkiina aan ku baraarugsanayn ee Soomaaliya Soomaalida dhinacan aanu groupka aan ka tirsanahay ee aaminsan calankani inuu yahay muhiim lama taabtaan walaalo waad qaldan tahay haddaad rabto Soomaaliland inuu kula midoodo calankan bedel miiska la saaran la bedel haddaad rabto Soomaaliya inay midowdo aan u raadino calan mideeya Soomaaliya oo ay ka wada tashteen oo waqooyi miiska fadhiya iyo anagoo miiska fadhina inta isku nimaadno aan ka tashano aayaha mustaqbalka wadankeen si wada jira si islaag si aan kala dheerayn waa arrin wadaninimo waa arrin qadiyada waa arrin lama huraana ama aan diidno ama yaanaan diidine marka ugu dambaysa waxay tegaysaa halkaas inaan isku nimaado sidaan hore idinkugu sheegay reer waqooyi ma xoogi karno ayaguna xoog kuma tegi karaan aniguna xoog kuma soo celi karno labadanoo meesha waa ku jabanna ayagana dhib baa ku haystaa annagana dhib baa nagu haystaa si aan dhibka uga baxna marka gobolkan marada ee shaydaanka lagu caabudo ee gaalku uu sameeyey ee naga turjumin aan turno aan bedelno aan ku bedelno mid anagu aan leenahay oo aan wada samaysano calamadan kaleeto oo faraha badan wax macno ay sameeyeen male Soomaaliya wadad isku mid ah waxay u baahan tahay hal calan waxay u baahan tahay hal nidaam waxay u baahan tahay dastuurka islaamka inay qaadato waxaan rabaa walaalayaal inaad ku baraarugtaan wadaninimadu ma aha inaad shay gaal uu ku sameeyay oo lagu baray inaad ku dhaganaato ma aha wadaninimadu waxay tahay inaad ka fakarto sida wadankaagu uu hore ugu mari karo maxaa u wanaagsan wadankaaga maxaa u xun wadankaaga wadaninimadu ma aha inaad tiraahdo inna wajadna aabaana wadaninimadu waxay tahay in aqligaaga aad furto inaad isweydiiso su'aasha maxaa horumar oo wadankaygu gaari kara sideen wadankaygu ugu hiiliyaa sideen diinteeda ugu hiiliyaa anigu waxaan aaminsanahay inaan ha wadani taariikhda ayaa sheegaysa sababtaas daraadeed ayaan u ololeeyaa in wadankayga dib loo hagaajiyo in wadankayga laga soo xixi qaldan haddii aanan ahayn wadani maalintii gacanta la ii soo geliyey inaan iibsado diintayda iyo dalkayga ayaan iibsan lahaa waana diida maalintaas maantana dib uga degi maayo waxaan doonayaa waxaan codsanayaa waxaan shacabka Soomaaliyeed kula talinayaa arrintan calanka ah inaanaan yaraysan astaanta qaranku waa calaamad gaalo calankuna waa calaamad gaalo labaduba nagama turjumaan anaguna ma samaysan inaan marka kula dagaalano oo aan ku caraadino oo sanka ka gelino oo aan kula cilowno walaalaheen nagu diin iyo dal iyo dad ah na jecel anaguna aan jecelnahay laakiin ayna dhex taalo arrimo u baahan in laga wada hadlo waa qalad wax fiican ma kaasi wuxuu ahaa qodobkeennii afraad ee haddaan nahay reer talo ku nool aan ku diidanahay calanka iyo astaanta qaranka doonaynana in lagu bedelo marka la aan kugu celiyo si aad u xusuusataan kow waxaan ku diidaynaa annagu ma aanan samaynin taariikhda caddaynaysa labo waxaan ku diidaynaa lagama turjumo inna la ekaatay saddex waxaan ku diidaynaa inuu yahay astaan diimo kaleeto ama lagu caabudo diimo kaleeto afar waxaan kusoo darnaa caawan ku diidaynaa inuu calankan yahay kala geeyi inuu yahay calan kala qaybiyo Soomaaliya daraadeedna ay maanta caqabad u tahay in Soomaalidii ay heshiiso oo ay wada hadasho oo ay wadan kaliya noqdaan taas macnaheedu ma aha Somaliland issue-ga kaliya ee ay haysato ama waxa kaliya ay tabanayso inay tahay calankan oo ayagu ay aaminsan yihiin in lagu daadiyay dhiigooda bal waa qayb muhiim ah ayuu ka yahay waa qayb aan u baahannahay inaan ka tanaasulno iska ilowno xagga iska dhigno u yeerno walaalaheen aan dhahno let us sit down aan wada fadhiisano calan anagu aan leenahay aan wada samaysano dastuurka islaamka aan wada qaadano sidoo kaleeto aayatiinka wadankeenana aan wada qorano wax meel isku loogaano arrintaasi waa qaabka iyo nidaamka ay rabaan walaalaheen Somaliland aniguna waxaan aaminsanahay iyo inta wax garada oo Soomaaliya inaan la qasbi karin
dacaayaddu shay fiican maaha walaalkaa inaad xumaysidna waa kasii liidataa waxaan idinkaga tegayaa habeen wanaagsan waxaan leeyahay noqda dad difaaca diintooda u danqada dalkooda daryeela dadkooda ku dadaal annagu waxaan aaminsanahay in waddanka Soomaaliya lagu dhaqo dastuurka islaamka waa diinta islaamka waa mahadsantihiin habeen wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh